ملهي هلا سوق الوضعية وهي خالد يشيل دلك هلا ويشروع دي دلك قدام ويدوسنتهاي هي دلك حرقلي ووسارة التكتبة نبى هرفردية كليجي يسوق محايدة قلنكي هايستا وحبا لقى قرية ولا شيء هي ده حقوق الإنسان كلف تودو يوم محايدة وحيليه دليله هذا واحد مداون ده أريمهن قفكة ويوم فرنسكوني كهذلان waxaa jira Somaliland dad loo xiro xorriyadka hadalka ama baraha bulshada inay aragtidooda ku baahiyaan oo shacab ama aan wariyahayn ama aan siyaasi ahayn bal hadii aad eegto dadkaasi intee ka yihiin bulshada ama train teleg baad intaad ogtahay aad isleedahay waxa loo xiray hadalkooda laakiin waxa jira dad iyagu xukuumadii ka shaqeeya oo shaqaale dawladeed oo aan fikirkoodii si xor ah u cabiri kar haday cabiraan shaqadii laga joojinayo xarig waxa uu ku dhacay inta badan ragga laakiin dumarkuna laftirkooda kuma marno waxa jira hablo badan oo ku dhacay tusaale ahaan oo kale hanjabaado ku dhaceen saacado xina mal adiga laftirkaaga ku sagalay sidaan diiwaan gelinay xarunta kale adiga laftirkaaga waxaad ku jirtay dad saacado xidhnaa xagga warbaahinta sida xarunta xuquuqul insaanka ay sheegtay sanadkii la soo dhaafay 19 wariye bal xidhay marka waxaan soo dhaweynaa halkan afar kamid ah aqoon-yahanada Somaliland waxa ugu horeysa gudoomiyaha xarunta xuquuqul insaanka madaxa banaan Yasmiin Xaaji Maxamuud Cumar sidoo kale aqoon-yahanka dhalinyarada Somaliland kamida Cabdinaasir Axmed Xaaji sidoo kale saxafiga rugcadaaga Axmed Cabdiraxmaan Xirsi Heelo iyo sidoo kale garyaqaanad Nasriin Cabdishakuur oo kamida hablaha garyaqaanada Somaliland runtiina waxaan halkaasi aynu isla eegi doonaa bal xaalka ay ku sugan tahay amba hadda sida ay tahay ma garanaysaa xaaladda xuquuqul insaanka waxaan u jeedaa sida ay tahay freedom of expression ama ma garanaysaa hadalka iyo sida dadka ma garanaysaa ra'yadooda cabiraan iyo bal halka ay ku sugan tahay iyo waxa jira aynu isla eegi doonaa waxaana panelka noo daadihin doontaa saxafiyad Sagal Beeldeeq halkaas aan ka soo bilaabaya dhinaca waxa xusid mudan panelkan horta waa panelkii ugu horeeyay habluhu badan yihiin aan dhexdhexaadiyo marka waan ku faraxsanahay inamadana waan soo dhaweynaya in la jooga aad iyo aad heelana xiliya naga badanina waxaan soo dhaweynayaa oo barnaamijka igala qayb galaysa garyaqaan Nasriin Cabdishakuur oo kamid ah bahda looyarada ama garyaqaanada reer Somaliland aad iyo aad baan soo dhaweynayaa waxa ku xiga Axmed Cabdiraxmaan Xirsi Heelo rugcadaas saxaafadeed aasaasaha telefishinka Sahan TV iyo sidoo kale wargeyskii Sahan aad iyo aad baan soo dhaweynayaa waxa sidoo kale isna ku xiga Cabdinaasir Axmed Xaaji oo kamid ah dhalinyarada aqoon-yahanka reer Somaliland isna aad iyo aad baan soo dhaweynayaa ugu dambeyntii waxa igu xigtay gudoomiyihii xarunta xuquuqul insaanka Somaliland ee madaxa banaan Marwo Yasmiin dhamaantood aad iyo aad baan soo dhaweynayaa iyadaan ku bilaabaya gudoomiye si guud bal Somaliland maadaama aad ula socotada xarun madax banaan xuquuqul insaanka aad madax ka tahay waa sidee xaaladda guud ee xorriyadka hadalka بسم الله الرحمن الرحيم سقل aad baad maadsantahay walaal waxa kale oo mahadnaqaynaa telefishinka TV-ga Careedeg oo isku keenay halkan iyo dhamaan ka soo qaybgalayaasha debateska ama dooda maanta sida horta kulli panelkan baa ka horeeyo tan xurkii oo dhan dhameeyay marka laga hadlayo xaaladda xuquuqul insaanka Somaliland gaar ahaan xaaladda saxaafadda ama xorriyadda hadalka ama cabirka ra'yiga xorta waxay noqonaysaa sida ay panelkii horeba sheegeen xorriyadda hadalka Somaliland xorriyad waynu haysanaa oo dastuurkeeniba ay sheegaya in dalku dimuqraadi yahay qof walbana hadli karo ra'yigiisana cabiri karo laakiin waxa jira challenges ama caqabado badan oo xorriyadda hadalka ka yimaada ama cabirka ra'yiga ka yimaada ha ahaado saxafi madax banaan ama ahaado dadka la ra'yigooda cabiro baraha bulshada ku cabira ama social media ama halka imka baraha bulshada dadku ku kulmaan dadka ra'yigooda ka soo jeedinta badan caqabadaha jira marka caqabadahaas oo runtii iyaguna ah qaar soo noqnoqdo oo aynu aragno marar badan marka si guud xorriyad waynu haysanaa laakiin xorriyadii waxay leedahay caqabado badan baa jiro oo xorriyadda la taalo Yasmiin aad bay u mahadsan tahay waxaan waliba mar kale uga mahad celinayaa inay soo koobtay kooxda ka dambeysana waxaan rajayn doonaa inay soo koobi doonaan Cabdinaasir baan noqonay Cabdinaasir waxa jira Somaliland dad loo xiro xorriyadka hadalka ama baraha bulshada inay aragtidooda ku baahiyaan oo shacab ama aan wariyahayn ama aan siyaasi ahayn bal hadii aad eegto dadkaasi intee ka yihiin bulshada ama
train teleg baad intaad ogtahay aad isleedahay waxaa loo xidhay hadalkooda aad baad u mahadsan tahay sagal baldeeq sidoo kale caraadig baan ugu mahad celinaya inay kulan ka samayso waana kulamadayn u baahan nahay inay wax iska weydiino bulshadeena wax taraya haddii la eego statisticska ama daatada la eego koley yasmiin iyo xarunteedan xiganaya marwalba waxaan filayaa sanadkii hore sanad walba waxay soo saaraan warbixin sanadeed waxay sheegaan dadka hab siyaasiya loo xidhay iyo dadka wariyaasha la xidhayba laakiin si guud waxaa jirta hay'ad la yidhahdo Freedom House oo Somaliland iyo adduunkaba qiimeysa marka Somaliland waxa weeye wadanka labaad ee ugu wanaagsan xagga xorriyadaha geeska Afrika iyo bariga Afrika oo wadanka labaad ee ugu wanaagsan xagga xorriyadaha wadamada Carabta oo wadanka toddobaad ee ugu wanaagsan xagga xorriyadaha wadamada Islaamka adduunka oo dhan marka halka markaan eegno si guud Somaliland waxay ku jirtaa wadamada aad xorriyadkooda u wanaagsan yihiin marka xorriyadka la eegayna waxa weeye xorriyadka siyaasiga iyo xorriyadka rayidka xagga warbaahinta sida xarunta xuquuqul insaanka ay sheegtay sanadkii la soo dhaafay 19 wariye baa la xidhay sida ururka suxufiyiinta Somaliland ay sheegeenna 17 baa la xidhay sida ururka suxufiyiinta Somaliland ay sheegeen suxufiyiinta Somaliland waxa weeye 800 media houses ama goobaha warbaahineed ee dalka ka jiraan waxa weeye 56 marka 800 marka loo eego percentage-ka waxay ku noqonayaan 2% marka waxa weeye 800 in laga xidhay only 17 dhinaca kale nasiimanaag sanadkii hore lama xidhin wax warbaahin ah oo ama television ah ama jaraa'id haddii noqoto dhinaca rayidka waxaa la xidhay sida xaruntu ay sheegtay 78 sanadkii hore marka inagoo dee ilaa 6.5 milyan meelaha laynagu qiyaaso in intaas la xidho waxaan filayaa inay wax laga xumaado tahay laakiinse inay tahay tiro aad u yar si guudna haddii loo eego dadka Somaliland waxa weeye dad يعني critic ah waxa weeye dad jecel xorriyadda maxay la dhaqankeena raacatada ayaa waxay ahayd inaynu nahay dad yani aad u hadla oo wax dhaliila marka waxa laga yaabaa tirada yar inay aad u muuqato bulshahan laakiin marka si guud loo eego aad u hooseyso si guudna ay u jirto in institutionskeena iyo hay'adaheena iyo dawladnimadeena ay dhismayaasheedu wax yani still qabiyo yihiin si guudna dadkan la xidhaya laftirkoodu hadalkoodu aanay inta badan faafreeb lahayn misaalo kale wariyaasha la xidhay 17ka haddii xarunta dhinaceeda loo eegana 19ka hal qof quraya la maxkamadeeyo bashaare baan dahay inta kale waa la sii daayay maantana cid xidhan ma laha marka tirooyinku waa sidaas xaaladda guudna waxaan filayaa inta ku yaro karo axmed cabdiraxmaan xirsi heelo waxaad ka mid tahay maamulayaasha xarumaha warbaahineed ee Somaliland bal marka laga tago wariyaasha xarumaha warbaahineed caqabado intee leeg bay kala kulmaan marka laga hadlayo xorriyadka aasaasiga hadalka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu sagal beldeeq iyo areedeg iyo tiimka soo abaabulay banalkan baad iyo aad baa u mahadsantihiin iyo mawduucaynu ka hadlayno waa mawduuc aad iyo aad u muhiima oo bulshadana muhiim u ah saxaafaddana muhiim u ah qarankana muhiim u ah dhalinyarada dambana inay wax badan loo iftiimiyo muhiim u ah runtii inta aanan u gelin institutionada iyo dhibta haysata waxaan ognahay in Somaliland ay ka mid tahay dalalka ugu fiican dhinaca dimuqraadiyadda xuquuqul insaanka marka laga hadlayo iyo gaar ahaan dhinaca saxaafadda oo kale oo ay dalalka kale la jaarka Somaliland Djibouti Ethiopia iyo Soomaaliya saddex dal baa kula jaara saddex dalba Somaliland way kaga horeysaa xagga maxay ahayd xuquuqaha caadiga dastuurkeenana dee xubinta saddexaad wax kaleba kama hadasho ay ka hadasho xuquuqda qofka iyo xorriyadka asaasiga qodobka 12aad baa inaga warbaahintaaynu ka soo galnaa saddex qodoba qodobka 12aad mar walba waxa ku lifaaqan qofku inuu xor u yahay inuu samayn karo raygiisa cabiri karo qoraal ku cabiri karo soo bandhigi karo banaanbaxyo samayn karo laakiin xeerba waa in xeerka waafaqsan yahay mar walba raacaysa haddii waxaynu wadnaa xeerka waafaqsanaan waayaan way iska imanaysaa in maxay waxyaabaha qaarkood dhacaan markaan u soo noqdo su-aashaad weydiisay way jiraan institutionada qaarkood dhib badan bay kala kulmaan waxay la kulmaan mararka qaarkood in shaqaalahooda iyo mas-uuliyiintooda qaarkood la xidho qaarkoodna maxay ay dhinaca xukuumadda kala kulmaan cadaadis laakiin waxaa la is odhan karaa ama la isweydiin karaa maxaa keenayaa la isweydiin karaa institutionada aan gacanta ku hayno intooda badan dhalinyaray u badan yihiin inta maxay ama waaya aragga ama aqoonta saxaafadeed way yar tahay
dhalinyaradaas waxaa laga yaabaa inay meelaha qaarkood ay farafareeyaan ama ay ku dhacaan waxyaabo markaasi ka hor imanaya dee jiritaankii qarankan laftiisa. jamhuuriyadda Soomaaliland waa jamhuuriyad madax bannaan, dastuurkeenana waa waajibiyey qof kastoo muwaadini inuu ilaaliyo. waxaa kaloo maxay qofku ku mudan karaa looyaradii waa ku dhinaca iyadayda fadhiye qofku hadduu maxay qodob dastuuriya baba sheegaya qofku hadduu maxay jiritaanka qaranka, midnimada dalka, isku haynta dalka, waxyaabahaas oo dhan dad ka hor timaado adoo suxufiya waad ku mudanaysaa in aad maxay xarig mudato. marka waxaad moodaa in xukuumadda iminka joogta Somaliland muddadan dambe ay saxaafadda ku yara badnayd xarigga iyo cagajuglaynta iyo weliba hay-ada aan ahayn hay-adihii dee dadkan la xisaabtami lahaa oo si toosa markanu sheegna hay-adda sirdoonka qaranka la yidhaahdaa oo kale shaqo kuma laha inay soo farageliso arrimaha saxaafadda oo ay qodob xeer 27 oo xeerka saxaafadda ah oo 2004 madaxweyne daahir riyaale iyo golihii baarlamaanka markaa jooga qayb haystay ay ansixiyeen ayaa meelo badan uga damaanad qaaday inkastuu iska liitay oo weaknesskiisu iska badnaa xeerka. marka hay-adaha noocaas oo kale way ku dheereeyaan inay saxaafadda macal media houseska ay farageliyaan ama hilfaha mararka qaarkood u raacaan. marka taasoo kale waxay keenaysaa in dimuqraadiyaddii iyo madax bannaanidii hadalka iyo xuquuqdii asaasiga ay hoos u dhacdo. marka ma wada sina dhammaan warbaahinta Somaliland ka jirta, qaarkood baa kule cadaadis la kulma, qaarkoodna waxay ku shaqeeyaan oo ay iska ilaaliyaan inay meelaha wax ka soo gelayaan oo waxaa laga yaabaa in aqoonta lagu kala sarreeyo. institution waliba institutionku ragga joogay hablaha jooga ay ka aqoon badan yihiin, way ka xadhigya yar yihiin iyo maxay iyo inay meelaha qaarkood. marka institutionada intan dambe 7 sano dambe xukuumaddani joogtay aad baa tacadi badan ugu dhacay. bismillaahi raxmaani raxiim. aad baan idinka mahadnaqayaa Sagal Beldeeq, Ara Adeeg Media, dhammaantiin waad mahadsantihiin sida wanaagsan ee aad igu soo casuunteen mowduuc noocan oo kale ah oo bulshadeena faa'iido wanaagsan u leh. haddii laga hadlo xadgudubka, inta badan labada dhinacba xadgudub way geystaan. bulshada oo aynu ka hadlayno xorriyatul qowlkooda iyo xukuumadda talada haysa, labaduba xadgudubka labadu dhinacba uu ka imaadaa. waxaa dhacdaa marka xorriyadda hadalka laga hadlayo isagoo dastuurka aanu kala qaadin dadka baa wuxuu si siman u siiyey xorriyad qof kasta oo reer Somaliland inuu fikirkiisa u cabiri karo, uu ku cabiri karo qaab qoraala, qaab suugaaneed iyo qaab hadalaba. marka waxaa jira dad aan fikirkoodu iyagu cabirinba oo aanay bulshaduna ku baraarugsanin oo iyagu aan fikirkoodu bulshada aanu sooba gaadhin baa jira. alxamdulilah bulshada qaybaheeda badan fikirkooda way cabiraan, haba ka soo gaadho tacadi, laakiin fikirka waxaanay dad fikirkooda cabira. haddaynu goobo dadku iskugu imanayaan ku cabirayno, haddaan social media ku cabirayno, intaba fikirka wayna cabirnaa. laakiin waxaa jira dad iyagu xukuumaddii ka shaqeeya oo shaqaale dowladeeda oo aan fikirkoodii si xor ah u cabiri karin. hadday cabiraan shaqadii laga joojinayo, hadday xisbi mucaarada isla sawiraan amaba maxaa la yidhaahdaa adee qofku markuu fikirkiisa cabiraya waxa weeyaan halkuu doonayo ayuu sheegayaa. mararkaasoo kale waxaa dhacdaa qofki isagoo shaqaale dowladeeda oo aqoon-yahana oo day nagaba fikir wanaagsanaa inuu fikirkiisa la aamuso oo uu eego dantiisa shakhsiyanka ah, uu israado haddaad fikirkaaga cabirto bila dowladba u shaqo tegi weyda hadhow intay xukuumaddu joogto wuxuu ka baqan doonaa inuu fikirkiisa dib u cabiro. xataa wayna dhacdaa, shaqaale noocaas ay ku dhacday. marka mas-uuliyadda sida loo kala qaadayo, waxaa jira dad iyagu fikirkoodii cabira balse ku talax taga. waxaa jira dad xorriyadda u isticmaalay aflagaado. qofka bilaadanka ayna markuu fikirkiisa cabiraya haddii ay gaadho qofka kale sharaftiisa iyo karaamadiisa, crime bay isku bedeshaa oo waxay noqotaa ciqaab. marka qofku laftirkiisu markuu wax dhaliilayo ama institution dhaliilayo ama uu xukuumad dhaliilayo, maaha inuu shakhsi uu kala soo dhex baxo oo isagu shakhsigaas inuu ku dheganaado u caayo oo uu aflagaado u geysto. taasoo kale dee ciqaab baa ka dhalata. fikirkiisii muu cabirayn, balse bulshadu waxay haysataa inuu qofku uu fikirkiisii cabirayay. markaasoo kale qofkaas waa la xidhayaa, waaran baa loo soo jari, waa la xidhi. haddii xitaa broseska aan la marin
xadhig mar walba uu mutaysanaya markuu mutaysto waxaad arki doontaan qofkii oo meel walba loogu soo qorayo free hebel free hebel free hebel xoriyadiisii baa lagu xadgudbayo dee wuxuu cabirayay ra'yigiisii buu cabirayay ra'yigiisii muu cabiraynin cid buu caayay haddaba waxaa jira dad iyagu fikirkooda cabira oo balse xukuumadda markaa talada haysa wax ka sheega dadkaasoo kalena markay fikirkoodii cabiraan oo xukuumaddii markaa talada haysay waxay ku diidan yihiin sheegaan iyaguna xadhig muta marka kuwaasoo kale waa lagu tacadiyey oo dee xukuumaddiiba ku tacadiday kuwan iyagu bulshadii ka mid ahna waxay ku tacadiyayaan isla xukuumaddii amaba cid kaleo ka madax bannaan oo aflagaado u geysanayaan iyagoo moodaya inay fikirkoodii cabirayaan marka mar walba waxaa muhiima anoo soo gaabinaya raalnoq waxaa muhiima in la dabaqo dastuurka waayo dastuurka qodobka 23 ma jiro xeer ka farcaamay oo tib by tib u dhigaya xorriyadu maxay tahay horta asalkeeda see loo adeegsanayaa ma jiro xeer gaar uga hadlay marka inta iskoobkee uu ina siiyey baa muhiima inaan laga bixin wad mahadsantihiin maya xorriyadda dastuuriga ah cidina ma qaadan karto qofku waxa weeyaan hadduu shaqaale yahay xorriyaddii ra'yigiisa uu ku cabirayay qodobka 23 sheegay cidna kama qaadan karto ama xukuumad ha noqoto ama cid kale oo uu shaqeeyo ha noqoto markaasi shaqaalaha dawladda waxaan ognahay xeerkooda wuxuu sheegaa waxa ka mamnuuca siyaasadda inay galaan laakiin xeerku muu odhan waxa ka mamnuuca inay ra'yigooda cabiraan xukuumadda markaa joogtana ay dhaliilaan taasaan meesha ku jirin wad mahadsan nasriin aad iyo aad bay umahadsan tahay yaasmiin baan kusoo noqonay yaasmiine maanta dhan waxaa la yidhi dad baa xorriyaadka hadalka loo xidhaa adiguna waxaad joogtaa xaruntii xuquuqul insaanka dadka xorriyaadka hadalka loo xidho ama baraha bulshada wax ku qora ama gabiya ama warbaahinta la hadla haweenku intee bay ka yihiin ama haweenku ma la kulmaan caburintaas laga soo sheekeeyey bismillah waad mahadsantahay isagale walaal horta aan ku yara noqdae dee xadhigga waxaa ku dhacaa bulshada noocay tahayba horta inkastoo dee loo kala badan yahayoo mar walba waxaa saxaafadiina ku badan xadhiggiina ku badan ragga way yartahay way jiraan dumar ay soo gaadhaan xadhigga soo gaadhaan ama oo dee bushaaro ay aanu carabaabnay baa ka mid a laakiin waxaa mar kasta kaga badan dhanka ragga kaga badan waxaa kaloo jira caqabadaha aynu maanta ka sheekaynayno inaynu u fadhino iyadoo fursadana la haysto dee fursadii dastuurkaynu haysano tusaalahaan oo kale dee xorriyad badan uu damaanad qaadayo haddana lama wada odhan karo dee qofkaasi uu qof wada saxsani ma jiro qaladaad u imanaya laakiin waxa laga hadlaya waxa weeyaan qaladaadka laftarkiisa sida loo maamulaya tusaale ahaan oo kale waxaa jira marka qofka la xidho oo kale dee waxa lagu xidhay procedure saxi waa inuu jiro qofka lagu qabto ama ha ahaado qof bulshada u adeegaya saxafi ha ahaado siyaasi ha ahaado qofka waa in procedure saxa loo maro oo lagu xidho oo hadhowtona lagu hayo laguna maxkamadeeyo laakiin innaga inta badan waxaa dhacdo qofka in la iska qabto ma jiro malaha 99% dadka la xidhaa waaran looma qabto weliba xadhigyada siyaasiga ah saxafi ha ahaado siyaasi ha ahaado qof kale baraha bulshada wax ku qoray ha ahaado ama ka hadlayba waa la hayaa qofka muddaa la hayaa deetana waa la iska soo daayaa rukun sharciyo lagu soo daayay ma jirto rukun sharciyo lagu hayayna ma jirto trialka uu maro ama maxkamadaynta uu marana inta badan anagoo kale ka xafisan waanu ka qayb galnaa dhegeysiga waanu ka qayb galnaa tusaale ahaan oo kale wax dee saxo oo qofka la cuskanaya ama lagu eedeynaya ama wixii ka hadlay uu sheegay wax ka turjumaya inta badan laguma eedeeyo oo boonboonin badan baa ku jira oo ku jirta marka qofka yani isagoo qaladaadka la saarayo la leeyahay labada dhinacba qalad ka imaado laakiin haddana de powerka marka la adeegsanayo way ka xoog badan tahay oo powerkiiba ka xoog badan qofkii kale ee shacabka ahaa marka marar badan waxaa timaado qofka in power dartii loogu tacadiyo imika heloo kale waa ka carabaabay tusaale ahaan oo kale hay'ado aan ahayn hay'adihii ay ahayd inay xidhaan ama xadhigyada geystaan ama qof haddii laga soo cawdo uu xidho ayaa xidhaya deetana halkaa waxaa ka imanaya dee in power abuse badan uu dhacay oo imika weliba sanadihii dambe soo kordhisay haddadan dad waxay jira xorriyadda hadalka u xidhan oo isla hay'adaha ka cabanaya oo u xidhan markaa taasi waxay noqonaysaa haddii dastuurkiina runtii aan lagu dhaqmayn oo maxkamadaha laftarkooda aanay dardargelinayn iyadoo dee xagga marka saxaafadda ka eegtana aanu jirin xeer saxo saxaafaddii lagu maamula oo xeerarkii hore 60kii
laynoo qoran bay weli yaalay markii Soomaaliya ahayd weli xeer sax oo Soomaali Penal Code baa yaala oo waa 1960 xeer dastuurkiina waxa la qoray 2001 marka halka laftirkeeda contradiction badan ka jira ama iska hormays istiidooyin ba ka imanaya wuxuu dastuurku ka hadlayay waxa halka ku yaala shaqaysigu ma laha taasna saxaafadu way wajahdaa marka caqabado xaqaas ka imanayaan haddaan procedure sax la helin waxay noqonaysaa marka caqabada inta marka aynu u nimaadna guud ahaan xadhig waxa uu ku dhacay inta badan ragga laakiin dumarkuna laftirkooda kuma marna waxa jira hablo badan oo ku dhacay tusaale ahaan oo kale hanjabaado ku dhaceen saacado xina mal adiga laftirkaaga sagalay sidaan diiwaan gelinay xarunta kale adiga laftirkaaga waxaad ku jirtay dad saacado xidhnaa adana qaldanayn marka way dumarku way ku jiraan iyaga laftirkooda laakiin qayb ka yihiin maadaama ay adeegayaasha bulshada yihiin laakiin way kaga yar yihiin ragga kaga tira badan way aqoonyahan Cabdinaasir baan soo noqonaya Cabdinaasir marka laga hadlayo way nagan eegno waxa la shuruucdii qofkii xorriyadka hadalka u damaanad qaadayeen dastuurkii baa la adeegsaday qodobkii 32 baa la eegay bulshadeenu fahan intee leeg bay ka haystaan in shuruucdu ay u ogoshahay in ay xorriyadkooda hadalka ay dhiiban karaan aragtidooda aad u mahadsan tahay sagalay waxa weeye su'aalaad muhiim ah wacyiga dadkeenu ah xuquuqaadkoodu dabcan aad u hooseeya wacyiga يعني جود dadku say aragtidooda u cabiraana in badan waxa jirta mootay in caado jiri karto in mararka qaar dadku aanay eegi karin xayndaabka sharci iyo duruufta ku xayndaaban marka taas way hooseysaa laakiin waxa kor u qaaday cilmiga laftirkiisa oo jaamacadaha soo kale saxaafadda hadday aan lahayd markii laga bixi waayay marba in wariye la xidho wariyihii loo qabsado yani warka uu tibinayay inaanu faafraab lahayn inuu shuruucda jibinayay waxay noqotay in jaamacadda Hargeysa laga furo wax qaabisan warbaahinta taasoo kor u qaaday inay yani horta saxafiyiintu ogaadaan xuquuqdooda taasoo hoos u dhigtay imika in wariyuhu markuu wax sheegayo inta badan uu garanayo xindaabkiisa sharci laakiinse still tirada wariyaasha oo gelaya way yari si guud wacyiga baraha bulshada iyo xilliga doorashooyinku jiraan xilliga arrimaha siyaasadda ay kacsan yihiin dadka reer Soomaaliland laftirkoodu dalqaaf badan uu dhacaa oo waxyaabo badan oo lagu qaban karo way soo martaa marka taa laftirkeeda waxaan oran karnaa waxay jirtaa inay hooseyso dhinaca wacyigelinta hooseyso mararka qaarna inay dhacdo dad xayndaabkii sharci ku jira in siyaabo kala duwan laftirkooda xuquuqdooda loogu taxadiyo taasoo iyana institutionskeena ama hay'adaheena oo iyaga laftirkooda hooseeya mararka qaar waxa laga yaabaa inaanay jirin wax gaar ah oo dawladdu qof u doonayso inay u xidho laakiin laga yaabaa cid ka mid ah dawladdu inay iska soo xidho oo inta la ogaanayo oo la oranayo muxuu qofkani ku xidhan yahay iyo u xidhan yahay oo qofku hadduu dawladda u shaqeeyo kama dhigna inuu dawladdii matalayo oo marka taas laftirkeeda waxa dhacda dadkan xilalka dawladda haya dadka qaarkood inay awoodda si khaldan u isticmaalaan taayina waa wax jirta marka wacyigu qura kuma koobna shacabka wacyigu laftirkooda wuxuu ka kooban yahay dadka talada haya laftirkooda tukana jirta oo xagga judiciary-ga oo ah in 4 saacadood 48 saacadood gudahood qofkii sharciga lagu horkeeno inaynu inta badan iyana gaabsan naga dhacdo si guud waxa la oran karaa wacyiga dadkeenu hooseeya institutionskeenuna weeyir liitaan labaduba waxay haystaan fursad aynu ku hagaajin karno si guudna laakiinse ilaa imika meeshana marayno waxa ka muhiimsan meeshana jecelnahay inaynu gaadhno marka meeshana jecelnahay seen u gaadhno waxay u baahan tahay inay dadkuna aqoontoodii iyo wacyigooda korkaco institutionskeena iyo xeerarkeena inay hagaajin wixii ka dhiman aad u mahadsan tahay gabagabada waan kusii dhownahay heelan u noqonaya marka laga hadlayo warbaahinta si khaas ah waa cidda ugu badan aragtida loo xidho xorriyadka aragtida marka Soomaaliland haddaad eegtid xeerka saxaafadduna ma shaqeeyo marka si bal wariyaashuna ay xadhigga uga baaqsadaan oo in lagu tacadiyo ay uga baaqsadaan iyaga qudhooduna inay cid ku xadgudbaan ay uga baaqsadaan halkee wadada ugu habboon ee loo mari karo in xeerka saxaafadda la helo halkay kula tahay inay tahay sagalaad baad u mahadsan tahay waxay tahay anoo su-aasha gudagelayaba jawaabteeda in marka hore xeerkii saxaafadda dib loo soo loo habeeyey in la ansixiyo oo golaha wasiiradu iminka marayaaye baarlamaankana markuu gaadho ay sii daayaan in la helo komishankii saxaafadda oo markaasi u dhaxayn jiray inaga de kolley xiliyadeena dambe ma jire dalalka meelal badan buu ka jiraa
oo dastuurkuna uu sheegay xubno ka kala imanaya warbaahinta bulshada garsoorka arrimahaas oo 7 xubnood meelahaas noqonayay in kuwaana la helo si ay u kala badbaadiyaan xukuumadda iyo xukuumadda markaa jirta inkastoo mar walba ay ku xidhan tahay sida isfahamka iyo wada shaqayntu ay ku xidhan tahay sida markaasi shuruucdu ay tahay way shuruucdeena oo dhan waa wada qabiyo u badan tahay marka waxaa laga baaqsan karaa kow maadaama Somali Panel Court-ka hore saxaafadda iminka inta badan ee la xukumo isagun baa loo adeegsadaa waxa dacwadaha inta badan lagu qaadanay iyagoo madaniyaba qaarkood si criminal loo saara marka heshiiskaas ama maxay ahayd xeerkaas la ansixiyo wax badan baa iska bedelay oo inaga lafteeni waxba ina dabraya iminka lafteena inaga lafteena wax ina dabro badani ma jiraan qof waliba intuu kiishadiisa iyo komaradiisa soo buuxsado ayuu isagoon faafreeb samayn iyadoon tafatiri waxba ka qaban siisaynu sii daynaa qoladan kale iyaguna ay damqayso nabarada marka la xoqayo oo de markaasi marka waad aragto marka ninku mucaaridka ahna saxaafadda aad buu la socdaayo uu jecel yahay in laga agdhawaado wax loo yiraahdo maalintu meesha yimaadana waxa weeyaan qabta galiya iyo seelada galiya u badnaanta marka waxyaabaha ku kala badbaadi karna waxa weeye in xeerarkii oo dhameystiran la helo in maxay xeerkii saxaafadda kii hore 2007 muu wax badan muu waxa kaliya cid qudhow wuxuu sheegi jiray waxa weeyaan waayo inaga warbaahinteena qoraalka xilliga badnayd 2004 markii la jiray TV ma jirin radio Hargeysa baa idaacad ahayd warbaahin waxay u badnaayeen newspaperska inta badan qoraalkii madbacadaha ayuu ka hadlaya waxa soo baxay social media iyo isna cirka maraya oo cid waliba adeegsanaysa imika oo ka wax walba imika sii waalaya uu yahay qof waliba xilligu doono wax soo gelinayo halku doono ka hadlayo marka horta number 1 waxa in la helo xeerkii saxaafadda oo dhameystiran oo dhinac walba ka dhisan oo dhinac walba maxay eegaya in badan baa la soo wado waan ogaaminta dhaweedna waa kuwii ururadu ay ka hadlayeen in xukuumadda hore la golaha wasiiradu uu sii daayo baarlamaankuna si durdura uu ansixiyo commission ka la helo isla markaana waa la kala badbaadi karaya insha Allah hadii si fiican maxay malihii la isu guul wadayo oo wixii khalad jira dalka oo shuruucdii dalka dhan way dunsan tahay hay'adihii dalka hargalay oo wasaaradda tagtaba ninba hor fadhiya keligii isagu maxay qalinkii haysta waxba laga qoraya oo laga sheegaya hay'adahan xuquuqul insaanka laftoodu iyana maxay waxay leeyihiin dhaliilahoodu waxaad moodaa in arrimahan qofka human rights ka hadlaan dadka 32 sano 34 sano xuquuqdooda raadinaya iyaga laftooda xuquuqdaas dadka muwaadiniinta reer Soomaaliyeed raadiyaan oo arkimaysid mararka qaarkood research sameynaya maxaa Soomaaliland loo ictiraafi laayay maxaa Soomaaliland halkan dhigay Soomaaliland 6 milyan oo qof baa xuquuqdoodii lagu taagan yahay xuquuqda 60 milyan oo qof lagu taagan yahay hor taagan iyay ka socon laadahay waxyaabahaas oo dhan baa iyana maxay maadaama institution Yasmin ay ka socdaan Nasriin lafteedu ay dhinacii ku jirta garsoorka in laga hadlo ay tahay oo mar walba 6 bilood mar laga soo saaro report meelaha ay ka khaldan tahay in maxay Soomaaliland ictiraaf hesho in dadkan xuquuqda ay lahaayeen ay helaan in alguna dadkaas u been ka mid nahay بسم الله الرحمن الرحيم walaalo haddaan su'aashaada ka jawaabo dadkeenu inta badan imika dhalinyarada ay u badan yihiin dhalinyaradiina aqoon-yahanay u badan yihiin oo way bartaan maxaa la yiraahdaa aqoontii maadiga ahayd waxaan aragnaa jaamacadaheena si xawliye uga baxaan sanad kasta arday wax baratay marka dastuurku sharci yaqaanadu kuma koobna oo lama oran karo dastuurku maxaa la yiraahdaa qolada sharciga baratay un baa taqaan dastuurku waxa muhiim ah qof kasta oo fakalku doonaba ha noqdee af Soomaali buu ku qoran yahay inay dadku akhriyaan wax badan baa uga baxaya ardayda jaamacadaha ku jirta anu inantayda yar baaban baraaba iyadoo aan eedba ka bixin marka hooyooyinka wax akhriya ubadkooda baraan siiba inamada baraan hablaha baraan wax badan bay ku kala badbaadayaan marka maadaama aanu af qalaad ku qornay waa afkeeni ku qoran yahay waxa muhiim ah si wax badan ay dadkeenu ugu baxaan inay dastuurkii akhriyaan dastuurku aqoon uma sii baahna weyn wuxuu u baahan yahay qofkan inuu waxaan horta akhriyo waxyaabo badan baa ku jira xuquuqo badan baa ku jira oo qofkii ogaanayo wuxuu leeyahay inta badan waxa dhacda dadku inay kala ka baxaan balse aanay dib ugu noqonin maxaa la yiraahdaa shuruucda dalka
iyo inta aasaasiga ah ee iyagu ay ka baran karayaanoo shuruucdeena af Soomaali bay ku wada qoran wixii qofku garan waayo hab qoraalka sharciga uu ku qoran yahay wax laga yaabaa inuu qof weydiiyo yiraahdo oraahdaasi maxay la mid tahay marka sharciga la joogo halka terminology laga laakiin intiisa badan waa wax la fahmi karo maadaama wax la fahmi karo tahay inta badanna dastuurku uu soo celceliyo hab sharci ah iyo xeer baa qayaxaya markuu leeyahay wax laga yaabaa xeerkii qayaxayay inaanu jirin oo aan wali la sameyn ama uu baarlamaanka curiyaan ku yahay oo halka aanu ka dhaqaaqinba markaas oo kale waxa jirta hadda xeerkaas la sugayaa intuu soo baxayo laakiin inta qoran ee sideeda loo raacayo waxa muhiim ah in dadku akhriyaan waliba inta ka khusayso inta xuquuqda ka hadlaysa muwaadiniinta intaasun baaba ka khusaysa dadka intooda badan inta haday bartaan waa la kala badbaadaya xarigu uu yaraanaya qofku wuxuu ogaanayaa habkan uu wax u gudbinayo in aanu qof kale ku talax tagin ama aanu cid kale dhaliil aanay lahayn aanu u sameyn sababta maanta hadaan iraahdo institutionkaas aan wax ka sheego oo bari ka maalin institutionkii iraahdo soo cadee waana inta badan dhacda nagu soo cadee warkan aad naga sheegtay ama dhaliishan aad noo soo jeedisay cadeyn ma u haysaa ma yabaad leedahay deetana hadhow toolo sumcad dilis iyo aflagaadeyn iyo xeerkii ciqaabta guud baa loo noqonaya waana tabadana dadku iyo qaran iyo kicin dadweyne iyo waxyaabo badan oo xeerkuna waa xeerkii 1960kii Soomaaliya samaysatay inkastoo golaha wasiirada aan maqlayn la hordhigay xeerkii ciqaabtii Somaliland oo socdo waxaan rajaynayaa in si wanaagsan oo degdeg ah oo inoogu soo baxo dhowr iyo 30 sano kadib dabcan marka si ummadeeni xukuumadii marka talada haysay iyo dadka laftirkooduba u kala badbaadaan waa inay dadkii shuruucda intii ay ka gaari karayaan ay bartaan oo akhriyaan waayo maalin haday akhriyaan waxa laga yaabaa inuu qofkii xasuusto wixii uu akhriyay marka walaalo taladaydu waxa weeye bal shuruucda ha lagu noqdo oo ha la akhriyo oo qofku isagoo iskuul ku jira waxa bay ahayd been secondary-ga loogu bilaabo dadka oo ardayda secondary-ga ku jirta ama aidedka ku jirta dastuurka la baro oo loo sheego oo la yiraahdo dastuurkeenu saas u dhigan waxaad arkaysaa qof aid ka baxay ama form 4 ka baxay ama dugsi sare ku jira oo micnaha qarannimada aan fasiri karin marka qarannimaduna waxay u baahan tahay barashada dheeraada in iskuulada lagu daro in maadooyinka lagu daro in qarannimada qofka lagu soo barbaariyo ayay u baahan tahay oo hoosta laga soo dhiso qofkii marka walaalo waxaan soo jeedin lahaa in dadka iskuulada horta loogu dhigo dastuurka iyo in dadka aqoon-yahanka ah ee dalkeena ku nool Somalilandna ay bartaan shuruucdooda intii ay ka gaari karayaan wad mahadsantiin aad iyo aad bay mahadsan yihiin kooxda igala qayb galisay panel discussion-kan ama dood wadaagan ee ku saabsanayd xorriyadka hadalka iyo Somaliland halkay joogto waxay igala qayb galisay garyaqaan Nasriin wariye Axmed Cabdiraxmaan aqoon-yahan Cabdinaasir iyo sidoo kale gudoomiso Yaasmiin aad iyo aad bay dhamaantood u mahadsan yihiin waan fasaxayaa waqtigooda say noogu horeena aad iyo aad bay u mahadsan yihiin idinkuna saan u dhageysatay waa ku mahadsantiin